منافقة وحا ليدي علامة لي آية المنافق ثلاث نبي وحيد عليه الصلاة والسلام منافقة صدح علامات لقد قرتها منافق قلبي يسلم أركيه إلهي ينبأك سبحانه وتعالى وحكو جره لكن أفعاشي سألقى قيمين كره سيدا وقيد بالنبي وحيد عليه الصلاة والسلام منافقة بقى آيات لقد قرتها وصدح إذا حدث كذب هدو والرمبا ليدي وبينالي بين بوشيغا حديث كيسو نيكا كان وركيسو شكاجي سبيني كما مدنا وإذا وعد أخلف هدو بلن قاضو أما وحيبه إلى وحاسان يليه أما وحاسهينو أهاتو وحي بلن نوو بريا أبو النبي عليه الصلاة والسلام وإذا تمن خان هدي لآمنه نوح بخيامية صدح خصلة ما صدح شيء وصفات كالليتا أبو النبي تلمام صفات كالليتا وحكا إذا نقفكم بان شاقة بانت horta beenaalu waa fulay marka koowaad waayo waa qof aan xaqiiqada waajihi karin beenaalu waa qof raba xaqiiqadu siday tahay inaanu waajihin inuu si waaqac khilaafsan u sheego idan waxa calaamada koowaad ee beenaala lagu yaqaan waxa weeyaan waa qof fulay aan xaqiiqada waajihi karin xaqiiqada siday uma sheegi karo qofkuna kuma haboona fulanimadu waa waaqac uu ka ban sheegayo nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaankii markaa wuxuu calaamad uga nifaaqi waxa calaamad looga dhigay inuu beenaalay bal quraanka ilaahay muxuu tilmaamaya inma yaftari alkadhib alladina la yu'minun billahi inma yaftari alkadhib beenta wuxuu ba abuuraba la yiri kuwa iimaanka lahayn idan qofku inuu been sheega waxay doontaa ka qadhaadaato qofka muslimka waxa lagu yaqaan inuu run sheego inuu xaqaa'iqda sidooda u tilmaamo taasaa dadnimadiisu ay ku jirtaa qofnimadiisu ay ku jirtaa raganimadiisu ay ku jirtaa shajaacadiisu iyo geesinimadu ay ku jirtaa yani dadka ducafada waxa lagu yaqaanaa inay isku dayaan xaqiiqada inay ka baxsadaan hatta in badan kuwan qaad iyo khamro iyo waxa kani waxay jecel yihiin inay noloshaba is dhaafiyaan yani xaqaa'iqda noloshu diiday qofkan inuu waajaho saasi daraadeed wuxuu doonayaa mahrab meel uu cararo ولذلك صخرتنا يا وحنا لا سميو انت ugu badan la qaar waxa ku kalifta inaanu xaqiiqada waajihina awgeed